buugga meydka nasiya oo lagu soo aruuriyay ayaan darradii dadkeena ku habsatay xilligii maamulkii hore uu hogaaminayay Cabdi Ilay ka arriminayay deegaanka ayaa si gaar ah uga hadlaya dhibaatadii qoyska reer Haybe loo geystay iyo xasuuqii ka dhanka ahaa xuquuqda aadamaha. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka qayb galay munaasabadda bandhigga buugga meydka nasiya ayaa sheegay in markasta loo baahan yahay in la xasuusto taariikhaha la soo maray cid kasta oo dhibaato geysatana oo sharcigu ka weyn yahay. sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in komishinka baarista tacadiyada deegaanka ay wadaan baaritaano la xidhiidha tacadiyada deegaanka ka dhacay. arinta ku saabsan tacadiyada ka dhacay deegaankeena taariikhiyan laga soo bilaabo tan iyo xilligii dhibaatooyinku nagu bilowdeen ee dawladihii kala duwanaa iyo nidaamyadii kala duwanaa ee dalka ka jiray ay dhibaatada shacabka ku bilaabeen oo hadda 60 sano kor dhaxsan malayn waa mid u baahan in si ka duwan sida hadda aynu uga sheekayno loo document gareeyo oo loo qoro si duuduuba waa looga hadlaa laakiin in la document gareeyo oo laynala ogaado waxay dawo ka tahay bari ka maalin xusuustaas inaan lagu murmin maadaama haddii wixii qoraan uu ku jirin lagu murmi doono waxaa kaloo dawo ka tahay in dadka maanta jooga ay ku dhiiradaan inay ka hadlaan wixii soo maray haddii la taariikh la bilaabo kuwa kalena ee aamusana way soo saarayaan waxaa kaloo dawo u noqonaysaa maamulada jira maanta iyo kuwa iman doona inay iyaguna ayna ku dhiiranin waxyaalaha dhacay oo taariikh qoran oo jirta oo xanuun badan oo shacabku ay og yihiin inay jirto inay ka leexiso taariikhda madow inayna gelin ayay dawo ka tahay marka waan ogaadinayaa wiilkaas xanuunka hayay dartii caawa fursadda aynu kaga sheekayno dhibaatooyinkii dhacay oo ka ballaarnaa hal qoys laakiin tusaale cad ay u tahay qoyska dhibaatada soo gaadhay baaxadda ay la ekayd dhibtu inaan isugu nimaadno waxaa laga hadlay tacadiyada iyo sida dadkii tacadi ugu dhacay dhibaatadii gaadhay waxba looga qabanin waa laga qabtaa runtii dhibaatadu sidii la sheegay haddadan intii yaree koobnayd ee daraasaadka la sameeyey ilaa iyo 50 kun oo qof baa laga qoray dhibaatooyin sheegtay 70 kun inay gaarayaan dadka diyaarka liis ku jireen waan ognahay hadii la sii wadana way ka sii badan doontaa waxaa laga hadlayaa muddo kooban oo laga yaabo sanadihii u dambeeyay dhibaatooyinka dhacaya laakiin yani isku dayga in la aamusiyo dadka dhibtu gaadhay wuxuu ahaa mid abaabulan oo xoog badan oo dhaqaale badan lagu bixinayo dadka dhibaatadu gaadhay waa tabar yaraayeen dadka dhibaatada geystay waa tabar badnaayeen sida hadda u sii tabar badan arrintaas marka arrimo fara badan oo lagu baabiinayaa leeyahay waxaa laga bilaabay dood aan meesha ma oolin oo ah TPLF kaliya waxba inama yeelin dawladii Itoobiya ka horreeyay wayna laayay oo yaa yiri inama layn waa waxyaalaha xaq laga hortagay yaa yiri inama laynin dawladii Hayle Salaasi iyo dawladii Mengistu inama layn mid laba jirto ku doodaysa taadi qolkiiba macnaha dadkii diidana say u sameeyeen mooradug qoys baa laga hadlayay hadda iyo xoolo mooradug taariikheed baa socda hadda laftigeeda dhawaan waa lagu murmi doonaa waxa soo dhacay ma dhicin warba eega lagu murmo hadda yaliya taadi dawladii hore iyo dawlad mid ka taadi badan baa leeyahay ka dhacday ku dhacaan hadda wala bilaabay lagu murmo marka mas'uuliyad baa inaga saaran xaqayna sheegno baadilku inuu guuleysan in duruufo siyaasadeed iyo naariishino siyaasadeed iyo wixii Soomaalida aynu ahayn iyo waxyaalihii inayna keenin ila soo qasmo waxa kaloo la soo jeediyay inta badan dadkii dhibta geystay iyo kuwii muxuu ahaa aan geystay laba kala garanayo kuwii dhibta geystay xaq hore fadhiya arrintaas anigu waan ka hadlay oo jeer hore boroseska cadaaladdu inuu siyaasad u ekaado ma kolba qofkii meesha fadhiya inuu isagu xukumo qofka kale dhibaatada geystay ma nidaam uu maraa adduunka la yaqaan waa sababta komishinka loo asaasay bal dadka aynu ku kalsoonahay aan isleenahay waxbay inoo garsoori karaan wax soo baari karaan aynu soo xulo ha soo baaraan hadda Mustafa Haybi iyo dhibaatada reer Haybi dhibaatada gaadhay qoyskiisa Allah naxariistay dad soo baara iyo nidaam cadaalad inay helaan xukuumadda kaliya kuma xidhna waxa ka fiican marka inta guddi loo asaaso guddigaas markuu soo baaro waqti bay qaadatay way dheeraatay taban in qofkii maxkamad tagay maxkamadda uu tago
كيو عفية وعفيو سيو طالع وأنا وإنه قفك إنك تمادون إن حكومته تلمامته أي ترى هذا سيدا هلا يلو حكى قرب إن قفك إنك تمادون أردت التعديل اللي واتضنا أدون كده تعدي وما كان يشري لما أنت تيجي يستوي ودن كل حكى ولا بود الجين واحد من هاي لما مريم تام معناه يدو معها لقى تشري واحد جيستي قار حكى ولا كشري قار تاريخ ذا كشرتي قار دميرك ولا كشري وقار استوتي بجي دميرك قف عنان بحيث تشري أو هذا كليجي أنسحن كرينو نبتو كيست دريم لكن ذاتك مسكح لك حنوصل دميرك مشقين dadka maskaxda ka xanuunsan cabsi iyo lagu xoog bato oo baax ku dareeman damiirku ma canaanto qofka halka fadhiya imika dad far badan baa jira wax dhex maraan hadii qof aad ku xadgudubto oo aad garaysato waxaad samaysay inuu khalad yahay aad baa laga yaabaa ilaa aroodta arkayso inay ku dhibto habeenka ninka hebel ah maxaa waxa uu sameeyay shalay isoo ila hadlayaan hadal xun ku ooli aad ma aha wax ku dhibay maxkamad kuma haysato boolis kuma haysto adin baa habeenkiisa rurugi waa damiirka waxa laga hadlaya dadkan damiirka lahayn yaani dibta ay geysteen hadii lagu qabto oo lagu maxkamadeeyo dibata sharci lagu horgeeyo mooyee iyagu damiirkoodu ma balaha marka horeba haddana calaamadaha noocaas way muuqdaan waxaa markaa habboon taariikhdeena inaan qoranno haddii ay jirto cid ku murmaysa taariikhiina soo maray ama xilligii boqortooyada ama xilligii cid waxa bisxada baan dirkiga ahay ama cid ku murmayso oo la tacaadin ugu ma dhicin dadkeena haday jirto waa in la doodo laakiin doodaha khaqiiska ee ay horboodayeen nasiib darro qaar kamida dadkii halkii sheegay waxay ahaayeen yaa ina dilay inaga laba qoomiyad hebliyo qoomiyad yaa inoo hor wala qof la dilay kuma naamos bala dilay kanooni wixii ka dambeeyay Aisha imsoo waqtiga waa inay dhibaatiin marka aad waxaad wixii qarnaysaa waqtiga marka wala kacnaariishino wala samaynayo oo dulmigii la geystay dhibtii la geystay ee TPLF iyo intii la socotay ay geystay lagu baabinayo ayaa jira nasiib darro qaar kamidi saan sheegay dadkii ahayd ee ka hortagaan kamid taas waxay keenaysaa marka in la masoobo oo iskala garan waayo kulay marka dhamaadaan baaritaanadu ila soo bandhigaa qorshu yahay oo la keeno cid laga haybiisanayo oo maxkamadan la keeni karin oo la dacweyn karin ma jirto dadku ile waxa punishmentiga loo soo rogay loo sameeyaa in wixii damiirkiisu qabanaya damiirku qabto wixii sharcigu qabanaya sharcigu qabto way jirto haddaan sharciga qabanin damiirna way jirin oo dadkiiba ay wixii caadi u arkaan bari kama in dad noocaas sameeya ay yimaadaan ashkhaastii sameysay ma imanayaan laakiin dad kale oo sameeya ayaa imanaya marka arrimaha noocaasana insha Allah hadii la yiraahdo dadaalkeena aan ka qaadano buugtaana oo yarka muxuu ahaay oo ku taageerayna oo aan ka caawinayna intii khaldantay jiha khaldan qaaday waxyaalo maaragtay xilligii loo baahnaa in sida sax looga hadlo sababo jira oo duruufo siyaasadeed dhiigii shacabka iyo masaakiinta dhimaysay siyaasiyiin ka soo noqdaan dhibaatadii shalay inay nagu dhicina shacab ahaan commitment aan qaadan kulligeedba xilka iyo siyaasadda iyo wax waa sahal qofka xilka haya maanta waa hebel bari waa hebel saadab waa hebel adduunku saab isu bedela maalin walba dhibaato ma laha laakiin inaan deegaankeena nabad ku haysano inaan xorriyad ku haysano inaan nafteena aan u cabsano waxa ugu sahal waxa ugu hooseeya ee qofka bini'aadamka heli kara hadduu gaajo iyo abaarti iyo baahida uu ka xoroobo cabsi inuu ka xoroobo nabad iskaga sexdaa ruutu soo tooso